عامر بن عبد القيس رحمه الله أيو ننكو يلي الشيخ يجوكس مركز العاد يجوجها كو جوكسدي بريقا ساعد لا ايغنا مددكم ما هيسنه لكن waxa la eegaya waqtiga la eegan jiray saacada habeenkana xidigaha la eegan jiray wadaada ii jooji kolka cadaada ii qabato ayaa ku joogsan bimaana waqtiga igu socday hadaad waqtiga ii joojisid waan ku joogsan weeyaan hadii kale ma joogsan karo inagana maanta waxay naga maraysaa inaan idhaanahay waqtiga baas halkeen ku soo dilaa balaga maray وقتك وثرودي لهي كسي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ بالنبي قول عليه الصلاة والسلام لما النعمة دودو وين بالنبي قولي وددك انتو دبادن ما ركتان اي كدغن يهين ومعناه غفلت اي كغسغن يهين ولا بده وفراغ انت قعن بنانتهي وانت نوشهي با لو جيدا انت نوشهي فراغ بعد هيستاي اوغو انت فقير كاتهينا فراغ بعد هيستا انت دليرada taayna faraaq baad haysataa hadaad adigoo faqiir ah hadaad quraanka akhrin kari weydo ma maalintaad maal qabeen noqotaad quraanka akhrin kari ila dadka adduunyada haysta way mashquulaan adoo dhalinyaro ah hadii aad ma aragtaanay aad quraanka u fadhiisan weydo khatimi weydo maalin walba ama toddobaadkii ama shantii cisho ama 10kii cisho aad ku khatimi weydo ma marka islaan iyo ubadiye mas'uuliyad ay ku fuusho miyaad quraanka akhrin kari doontaa adigoo faraaqayso maanta nool oo adduunyada jooga hadaad ka faa'iideysan weydo bisha Ramadaan iyo cibaadada iyo taacada Ilaahay aad kordhin weydo ma marka qabriga lagu geeyad cibaadeysan doontaa may daarul amal waa halkan qabrigu daarul amal maaha qabrigu waa daarul jazaa daarta abaal marinta weyn qabrigu halkan daarul amal leeyada marka labada nicmadooda Ilaahayna siiyay yaan dayicin laba shay baynakum maanta waan la dagaalanaa waqtiga sibaan la dagaalanaa marna waan caynaa marna waa soo dilaa dadkeena waqtiga marna way dilaan marna way aflagaadeeyaan waqtiga marka dilaysid waxaad ogaataa yar fadhiisi yar keer fadhiisadeer waqtiga marka leedahay han soo dilo waxaad ka dhigantahay waa rasuul maalkaagii baad dilaysaa imaam ibn qayyim al-jawzi Allahu naxariistay baa yiri waqtiga oo la dayaca waxa uu ka adag yahay dhimashadu ka daran yahay inaad dhimato iyo inaad waqtigaaga dayacdid waxa daran inaad waqtigaaga dayacdid lima wuxuu yiri waqtiga oo dayacdid waqtigaaga hadaad dayacday waxay ka dhigan tahay ilaahi ku abuuray baad ka gooday aakhiradaadina waa dayacday bay ka leedahay iyo ka dhigan tahay laakiin hadaad dhimatid adduunyadii baad ka gooday ilaahi kamaad go'in mawdku adduunyadu ka gooyaa laakiin waqtigaaga dayacidiisu ilaahay aakhiradaadii buu ka goynayay ugu marna inaku waqtiga maanta waan dilaynaa oo anaka maanta waqtiga halkeen isku soo dhaafinaa waqtiga halkeen ku soo dilaa marna waxaan ilaana waqtiga naabihi cuna sida ay galay aniga wa maasha ilaahay uu lahaa xadiis al-qudsi yu'dhini ibnu aadama wa lam yakun lahu dhalika yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr wal-amru bi yadi uqallibu al-layla wan-nahar ba ilaahay in aadan ba idibaya oo siday in aadan idibaya zamankii aflagaadeynayaan ba ilaahay yiri zamanka markay aflagaadeeyaana amarku anu gacantayda ku jiraaye zaman maaha waxa waxba badilaye aniga ayaa xaaladka bini aadanka la soo darsaya aniga keenayo badilaya ba ilaahay yiri zamanka aflagaadeyn zamanku waa ilaahay zamanku waa ayo Allah dadka inta badan hadaad wareysato waqtigaas ay wada haystaan ilaa waqtigaasada ay galay waqtiga halka ay dhigay waqtiga iga jeestay reehbal waqtiga Allah ya maanta waa waqtigoogi waqtiga ay ka qabtay warma yiraahdaan yasubbu ad-dahr zamankay aflagaadeyn ilaahay bal zamanku caayaya zaman meesha ma jiray amarku xaqaygu ka imanaya ba ilaahay yiri oo wixii xaalad in la soo darsay ahwaal inagu imanaysa ana keenaya zamanku ma keena ba ilaahay yiri ana keenaya abaar haday timaado ilaahay baa qadaray barwaaqa haday dhacdan ilaahay baa qadaray meel haday gubato ilaahay baa qadaray dad haday caydhoobaan ilaahay baa u qadaray dad haday maal qabeena noqdaan ilaahay baa maal qabeenada ka dhigay xaalad
adiga isku nisbe wixii dhibaato kugula soo dirista adu isku nisbe laakiin waxaad ogaataa shar iyo khayr waxa uu ka imanaya waa xagga ilaahay marka marna dadku zamankay aflagaadeynayaan marna waxay leeyihiin zamanka halkeen ku soo dilaa zamanka hadaad aflagaadayso waxay ka dhigan tahay allihii ku abuuray baad afka ku taagaysaa markaad leedahay zamanka halkeen ku soo dhaafiyaa oo waqtiga halkeen ku soo qaadanaa markaad leedahayna waxay ka dhigan tahay tharwadii ilaahay ku siiyey ayaad cidla ku soo daadinaysaa cid kaa qabanaysana ma haysatin imaam xasan albasri allah u naxariistay baa odhan jiray addoonka ilaahay inuu u cadhooday waxaa lagu gartaa waqtigiisa ka dayacma buu yidhi haddaad aragto addoon waqtigiisu dayacan yahay mar walba dayac waa maxay waa markuu qofku ku jiro laa yacni waa maxay waa markuu qofku ku dhex jiro shaqo aakhiradiisana aan waxba ka taraynin adduunyadiisana aan waxba ka taraynin shaqada laa yacni baa la yidhahdaa qof 24 saac laa yacni ku dhex jira haddaad aragto waxay ka dhigan tahay addoonka ilaahay baa u cadhoonaya ka dhigan tahay waa calaamaadkan lagu garto inuu ilaahay addoonka u cadhaysan yahay haddaad aragta maxay addoon waqtigiisu mar walba uu dayacan yahay meel dayacan buu fadhiyaa dad dayacmay buu la socdaa wax dayacan buu waqtigiisa ku bixinayaa dad xun buu la saaxiibayaa meesha uu fadhiya ma garanay waxay tahay uu dayacan yahay markaas addoonka ilaahay uu khayr u la rabo uu raalli uu ka yahayna waxaa lagu gartaa bay culimmadu yidhaahdeen meel wanaagsan baa ilaahay mar walba waqtigiisa ku bixiyaa hebel masaajidku xilliga jooga hebel quraan buu akhrisanayaa hebel dacwadiyo diintu ka shaqaynaya hebel xaramkuu jiraa hebel aabbihii hooyadii buu u adeegayaa hebel qaraabadiisiibuu maanta wuxuu geeyey u soo adeegaya u xidhiidhinayaa hebel madrasaduu macallinka iyo ummaddu cilmiga u dhigaa hebel masaajidka xilliga laga helaayo maqaaxi lagama helo haddaad aragto qof khayr mar walba ku mashquulsan waxay ka dhigan tahay qofka ilaahay baa khayr la doonaya ilaahay khayrka haynoo dhib yareeyo allah haynoo macaaneeyo khayrka allah haynoo macaaneeyo allahu akbar lidaalika culimmadii islaamku waqtigay garteen qiimihiisa caamir bin cabdulqays ayuu ahaa ninkaas waa ninkii maalintuu dhimanayay ayuu ooyey baa lagu yidhi markaasaa loo maleeyay inuu dhimashada ka baqaayo markaasaa lagu yidhi maxaad la ooyeysaa nin caabida oo magaalada dhan ee basro la yidhaha caabidkeygaa lagu odhan jire intaasoo jihaadna waad ka qayb gasho diinta halgankeega meel fiican baad ka gaadhee maxaad la ooyeysaa baa lagu yidhi laba shayba lama ooyey buuhi horta iga qora laakiin laba camal oo maanta iga go'aya oo dib dambe u arkayn baan la ooyayaa buu ku yidhi labadaan la ooyeyn baan nii sheegi buu yidhi cabsi aan aakhirada ka baqaayo lama ooyaayo adduunyadan aan ka tegaya jacaylo aanu qabana lama ooyine laakiin laba camal oo adduunka dusheeda aan ku qaban jiray ayay haddaan maanta aan dhinta iga go'aysay buuhi waa labadee alsawmu fi sayfi waalqiyaamu fi shitaa xilliga dhulku uu kulul yahay soonka aan soomi jiray iyo jiilaalka dhaxanta salaataleylka biyaha qabow aan ku weysaysanaya dhaxanta dhexdeeda aan ku tukanayay labadaa camal baa iga go'ayso dib dambe aan u arkayno labada aan la ooyay waa labadaas ogaada buu ku yidhi waqtigoogay ka faa'iidaysteen intay adduunka joogeen الصوم في الصيف كليل dhulku markuu yahay soonka ayaka u macaana shalay toole iyo laba cishaan imika hargeysaan uu la jooga maanta la saddex maanta dhulku waa yar fiican yahay laakiin labadan cisho hore uu yar kulaa laakiin anagu marka Djibouti ka imano hargeysa kuleylkeegu anaga wuxuu noo xisaaban yahay qabow oo dhareey hargeysa waxa dhulku waa kuleyl maanta markaas aan ku war kuleyl ma ahayna kuleyl inuu kuma darkin ilaahay كم كان قالوا كليل جيبوتي ويا لا بوصاصية بربرية لا بيه صدّن بوها أما أفر يصدّن ما لحظ هل كان مركو أفر يصدّن لحية صدّن ويا هي جيبوتي واللحية أفرتن هل كان مركو إنك عجين يصدّن جيبوتي وأفرتن أما دوري أفرتن وعجين يا هل كان مركو تضبيه صدّن قارو جيبوتي وحوق قارا السجالي وأفرتن بو قارا هذا والله صوما
ninkaas caabidka zaahidka ahaa ee taabiciguna waxa uu leeyahay maanta hadday naftu iga baxdo laba camal oo iga go'ay baan dib dambe u arkayn labadaa dartood baan la ooyayaa waa labadee kulaylka aan xagaaga aan soomi jiray asoomu fi sayf iyo jiilaalka dhaxantu markay jirto salaat al-leylkan u kici jireen tukan jireen dib dambe u arkayn buu yidhi ragaas waqtigay garteen qiimihiisa deedna way ka faa'iidaysteen ثابت البناني رحمه الله تلميذ وحوها أنس بن مالك أنس بن مالك باكو رجل دويبة دا بدي يربع تهيب كو رجل ثابتو هذا النبي محمد كو أركي لهانا والله واكو جعلان لها بكو يلي إربتيس يورع عيسى يتقوديس يعبادة بنديس يفهم جيس يسدو علمك وقرب يا صحابة مركو أركي والله هذا النبي محمد كو أركي لها واكو جعلان لها بكو يلي maalintu thaabit albunani uu dhiman doono ayaa inankiisii baa dul yimiday deedna markaas uu laqina tawxiidkii see loogu laqina qofku markuu dhimanayo dheh la odhan maayo waa lagu dul dhawaaqa laa ilaaha ila allah waa la maqashiinaya markaas soo markaa kaaga daba yidhaahdo innaga zamankeennan nin sheekhaa yidhi dhakhtarrada zamankan ilaahay ka barya inaad ku dhimataan buu yidhi hee tawxiidkaad moodaaba in lagala dagaalamaya buu yidhi waayo mar alle markuu qofku ay arkaan inuu sankaraad u yahay halkan ay wax ka gelinayaan oo halkan ay ka daloolinayaan oo sankay wax ka gelinayaan halkan ay wax ka gelinayaan halkaas xaan kale wax kaga dhaadhicinayaan labadan ay ka daloolinayaan xaquu tawxiid ba ka haleeli qasabada wada gashanay nin baa yidhi ilaahay ka magan galay buu dhakhtarrada zamanka inaad ku dhimataan ka alla barya buu yidhi waa aafo waa cuquuba buu yidhi runtii ثابت البناني إسقى أو سكرات كي وينكيس لدولي مدوكو يري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ساسويك أبو إنك يجيو ورد يجي أنا آخر سنجري أيان كم مشغول سنة هيك مشغولين بوكيدي يعني القرآن كي الراتب كأنو لها مالي والبين أنا خرجتو والله شو ذا ترتيب سنة ديك مالي والبقرآن كي إن بك آخر سنين أفرتي عشان مر ختمين غير صدق حدي عشان مر ختمين مركا ورد يجي أنا آخر جري مال الله أهابا كم مشغول سنة هيك مشغولين بوكيدي إسقى القرآن كي سي آخر سنة نفط ويكاد عضي بالليدي كل مرء يبعث على ما مات عليه قفك السنة مالك ودمنا يوحي وكدل دنتي أيو قيامها الله صبح دوناب النبي قول عليه الصلاة والسلام هدو قرآن أخرنا يي أسقى قرآن كأخرنا يبو صبح يا هدو سجود سنة مرك نفتو أي كبح دي أسقى سجود سنبو صبح يا هدو ذكر السمين يي أسقى لا إله إلا الله بو صبح يا هدو جهاد كل دنتي أسقى ديجي وكد هذين يو ديجي وليب وقيان يهي أيو صبح دونا نم والبا وحا وكل دنتي مركو لمن هي أيو قيام الله صبح يا أبو النبي قول عليه الصلاة والسلام حال مركب ما أنت لا دمنا إنك إن شاء الله لا إله إلا الله دمنا ور إن شاء الله هذا حال دمنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من قول لا إله إلا الله أكيد النبي يقول أكثروا وربضية جددوا إيمانكم إيمانكم جديدية مركب الصحابة دوران يا رسول الله إيمانك سيدنا لو جديدنا يا مركب النبي يقول عليه الصلاة والسلام أكثروا من قول لا إله إلا الله هذا قولك لا إله إلا الله بديه كعل علي أبو رسولك يدي واحد عربك كجعل علي ساعة قلبك وقلي واحد دكت كبد سا مقل كذا قلبك وقلي واحد إيش الدايم شديد سكبد سا قلبك يا دوبا وقلبك وقد دقي واحد أنت بدن أتكفكر تانا قلبك وقلي دونا قلبك لذلك dadkii hore quraankaasi akhrin jireen bisha Ramadaan waxay uga faa'iideysanayeen bisha Ramadaan ay u arki jireen inay bisha dambe Ramadaan sanadka dambe aysan gaadhaynin wa noolaan doona maaha waxay ku xisaabtamayeen iyaku bari toolo weeyaan maalintan dhimanayay
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. نبي عليه الصلاة والسلام وكي ابن عمر قربها انتو نبي عبد الله بن عمر انتو قبتي أيو نبي كويري كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. بالنبي يقول يا ابن عمر الدنيا دوشي هذا واحد كواتا قف غريبة غريب ومحي وقف كدل كيسي أنا جوجين كل كيسي ما جوج مقال هذا مسافر بوكويا ضنتو يمد إنه كذا ما يستمو يعني دك فكر مايو مال قبسة كفكر مايو أو عابر السبيل. عابر السبيل كنا ومحي وقف كهيل ودمر عليه مسافر كا. ابن عمر هذا الكامر كو نبي كم مغلي وحو أورنجري نفتي سوكو أورنجري إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هداد قلبي ستد وبري هالسجن هداد وبري ستدنا قلبي هالسجن أنت العافمات كقبتنا وقف إذا أنت أند بكون أنت النوش هينا وقف إذا أنت أند من وماشى إنك يا أصحاب النبي وأنكو كلا دونا يكو حديث مرق النبي كم مغلان حديث كم مرايض وكلا أنت صور دجان أي مركان نوال بو حديث كأسكو إيجي ماكو عمل فلايا مسكو عمل فلا مايو حديث كان الله شيء ما يمدي مسمى من ماكو دغما مسكو ما دغمو آيات قرآن هذه النبي جينا كو صدقتو آيات أساس اسكو هرج جرين يوك مركب بريتو لها كو حساب تمينا ما أنت هذا يقول هذا كفايديسو كلدم بالرمضان كلدم بان قاعد يا هيسورن بشهر رمضان كفايدة سمحت كفايدة سنة ساعة قرآن كأخرس كيس بدي ما عاد كفايدة سنة ساعة ذاتك مسلمين تسكع عفي وسك سامح ما عاد كفايدة سنة ساعة هذه هنتيلة إلى هاي وكسيينا هنتدع هذا بشهر رمضان ذاتك ضعفاء وحوق قبو وذاتك كو أفري فري هبة تمر هذا سولالك كو أفري كبشعنا ولا كبض هذا سولالك كو أفري أجر كيسيب الله لقبتن بو نبي كايدي